السلام عليكم. سوري بدا صاحبيال waxaan ahay Ibrahim Adam. maanta waxaan dhihi karnaa waa waqtigii ugu wanaagsanaa ee aad maalgashan kartay suuqa crypto. yani waa waqtigii ugu fiicnaa ee aad ku soo biiri kartay ama hadii aad hore ugu jirtayna aad maalgashan kartay suuqa crypto. sababtan waxay tahay in suuqa uu mar kale fursad bixiyay. waana waqtigii ugu wanaagsanaa ee aad maalgashan kartay. wali waxa jiro dad aanan fahmin qaabka uu u shaqeeyo suuqa crypto. muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaaga baahi tiro qaabka uu u shaqeeyo crypto. ma rabo in aan ku sii geliyo sharaxaad dheer iyo yani waa digital currency waa kan waxa inaan ku sii geliyo ma rabo sababtoo hore ayaan uga soo hadalnay. laakiin maanta waxaan rabaa sida ugu macquulsan in aan kugu sharaxo qaabka ay u shaqeyso crypto. example-kan ayaan soo qaadanaynaa si aad u fahanto crypto. isla waqti xaadirkan 90% telefoon ayaad ka daawanaysaa muuqaalkan. yani mobile ayaad isticmaalaysaa oo aad ka daawanaysaa muuqaalkan. haddaba telefoonkaas markii aad suuqa ka soo iibsanaysay oo aad u tagtay shakhsiga iibinayay telefoonka waxa uu ku yiri mobilkan waxaan ka iibinayaa lacag dhan $100. waa tusaale uu ka yaraan karaa uu ka badnaan karaa telefoonkaaga qiimahaas. waxa lagu yiri telefoonkan qiimihiisu waa $100. laakiin hal mid ogsoonow maalinka dambe ee aad suuqa ku soo laabanaysid telefoonkan waxaad iskaga iibin doontaa. yani adiga waxaad ku sii iibin doontaa qiimaha markaas uu joogo. adiga $100 ayaad ku soo iibsatay laakiin 2 bilood hal bil kadib ayaad suuqa ku soo laabatay si telefoonkan aad suuqa u geyso. kadib waxa lagu yiri waxaad ku iibin doontaa qiimaha waqti xaadirkaas uu joogo. laba mid ayay noqonaysaa. $100 oo ka hoos mari kara ama uu ka kor mari kara. haddii uu $100 ka hoos maro oo telefoonka 2 bilood ama hal bil kadib markii suuqa aad ku soo laabato uu qiimihiisi noqdo $50, laba wado oo kaliya ayaa ku furan markaas. in aad qasaaro gasho oo aad telefoonkii aad $100 ku soo iibsatay aad $50 ku iibiso ama in aad telefoonkaaga haysato oo haddana bil ama 2 bil kadib oo telefoonka qiimihiisa ku noqdo ama uu ka sare maro. marka sidaas aad sameynaysid kama dhigna in aad iska qiyaasaysid laakiin waa inaad analysis sameysaa. waa inaad taxliilin sameysaa. waa in aad ka fikirtaa qiimaha telefoonkani ma laga yaabaa in uu dib u laabto bisana ma laga yaabaa in uu halkan uu hadda sii joogo kasii hoos maro oo qasaaraha uu kugu sii bato. waa inaad ka fikirtaa. sidoo kale midda labaad oo dhici karta ayaa waxay tahay qiimihii $100 ee aad ku soo iibisay uu ka sare mari karaa. yani wuxuu noqon karaa bil ama 2 bil kadib wuxuu noqday $150 ama $200. haddana laba wada ayaa ku banaan. haddii uu sidaasi noqdo oo $200 iyo $150 uu qiimihii noqdo oo sare u kaco adiga faa'iido ayaad haysataa. yani $100 ayaad ku soo iibsatay $150 hadduu noqdo $50 faa'iido ay kuu saaran. haddii $200 uu noqdona $100 faa'iido ay kuu saaran. mar kaleeto haddana laba wada ayaa ku banaan. labada wada ee ku banaan haddana waxay tahay waxaad isleedahay qiimaha hadeertan uu joogo ee $200 uu gaaray uu ka sare mari karaayo ilaa $500 ayuu gaari karaa telefoonkan aad 100 ku soo gadatay. sidaas daraadeeda anigu telefoonkayga waa sii haysanaya. ama inaad isdhahdid maadaama qiimaha uu hadda maraayo ay tahay meesha ugu sarreysay lagana yaabo isbuucyada soo socdo in uu ku soo laabto qiimihii $100 ama uu ka sii hoos maro waan iska iibinayaa. yani waa iska iibinaysaa. laba wada kale ayaa ku sii banaan. labada wada kale ku sii banaan waxay tahay in qaybtii faa'iidada aad heshay oo kaliya aad la baxdid. yani faa'iidadii aad heshay oo kaliya in aad la baxdid $50 ama $100 ee faa'iidada ahaa oo aad iska daysid $100 ee aad ku iibsatay ama in lacagtu gabi ahaan aad kala baxdid. labadaas option ayaa ku baran. sidaasi waa sida saxda ah ee u shaqeyso crypto. yani qiimaha aad ku iibsatay way ka hoos mari kartaa way ka kor mari kartaa. sidoo kale $100 haddii aad ku iibsatay oo ay ka hoos marto oo $50 ay tagto macnaheeda maaha in aad qasaaradaasi si joogta ugu jiri doonto. haddii ay $100 ku soo laabato lacagtaada ku soo laabanaysaa. yani lacagtaada ma weynaysid. haddii qiimihii $100 ku soo laabto coinka aad iibsatay kadibna uu ka sare maro faa'iido ayaad sii helaysaa. lacagtaadina way ku soo laabanaysaa. haddaba sidaasi waa sida ay u shaqeyso crypto. haddaba qaab noocee lacag looga sameeyaa? 3 wado ayaa lacag looga sameeyaa. waxa la yiraahdo long term investment iyo day trade investment ama inaad samaysid exchange. midda ugu horeyso oo ah long term investmentiga waxay noqonaysaa in aad lacag gashato coin sida telefoonka example-ka ku soo qaadanaynay oo kale. coin ayaad iibsanaysaa. haddaba coinkaas mustaqbal ayuu leeyahay 2 sano 3 sano ilaa 5 sano kadib waxaa laga yaabaa coin aad $100 ku iibsatay inuu tago $1,000. marka waxaa laga yaabaa inaad iibsatay 500 oo coin oo kale oo aad ku iibsatay min $100 $500 halkii xaba haddii $1,000 uu tagay yani waxay ka dhigan tahay $5,000 inay halkaasi noqotay. marka $100 un yaanan example ku soo qaadanin. yani coin kasta $100 ma joogo. waxaa jira coinan maaragtay sintiyaal joogo oo aad ka iibsan kartid millions of coins. marka tani waxaa la yiraahdaa long term investment. yani waxaad sugaysaa inta aad faa'iido badan ka sameynaysid muddo 2 sano 3 sano ilaa 5 sano ayayna qaadanaysaa inuu isbedelkaasi dhaco. midda labaad oo ah day trade
lacag badan ayaad haysataa for example suuqa ayaad la tagaysaa $5,000 ama $10,000 oo kale ayaad haysataa suuqa ayaad la gelaysaa yani waad ku trade garanaysaa sida forex oo kale daqiiqado kooban ayaad galaysaa waxaad ka galaysaa halka ay ku jirto waad taxliilinaysaa waa analyze garanaysaa waxaad qiyaasanaysaa in ay lacagtani kor aadi doonto yani wuxuu jooga hadeertani $1 oo kale waxaad qiyaasaysaa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ama saacada soo socoto in uu coinkani noqon doono $1.2 marka lacag badan ayaad gelinaysaa $1.2 markuu noqdo ama $1.5 haduu tago oo saro u kaco yani faa'iido badan ayaad ka sameynaysaa waa hadii lacag badan aad haysatid laakiin lacag yar hadii aad haysatid sidoo kale waad ku trade garan kartaa laakiin faa'iido badan kama qabanaysid maalinkaasi yani faa'iido badan kama sameyn kartid sababtoo lacagta ku jirta coinka ayaa ka tira badan lacagta aad gashanaysid sidaas daraadeeda yani faa'iido badan kama sameynaysid laakiin lacag badan hadii aad la imaatid $1,000 oo kale hadii aad la kortid waxa laga yaabaa saacadii $100 inaad ku sameysid marka taas waxa la yiraahdaa ayadan day trade investment sidoo kale midda saddexaad oo ah exchange-ga waxa jiro crypto dhaxdeeda ama walletyada hada for example Binance ay ugu caansan Binance oo kale marka waxa jiro coin la yiraahdo stable coins coin kan dhaqdhaqaaq ma sameeyo yani $1 wuxuu u dhigmaa $1 oo USDT waa stable coin yani coin kala duwan oo waxa jiro stable ah soo marka USDT ay ugu caansan marka USDT wuxuu u dhigmaa halka USDT wuxuu u dhigmaa $1 hal USDT qiimihiisa isma bedelo soo lacagta aad USDT dhigataa isma bedeli doonto laakiin si aad u isticmaashid crypto ama aad u iibsatid crypto waxaad u baahan tahay in aad heshid USDT marka adigu maxaa sameynaysaa USDT badan ayaad soo iibsanaysaa soo marka qof u baahan in uu helo USDT ayaad ka iibinaysaa USDT-gaaga $105 yani qofkan wuxuu rabaa $100 ah kadibna waxaad ka qaadan doontaa $105 for example $5 faa'iido ayaad saaranaysaa waxaad u diri doontaa $100 oo USDT ah $100 u diraysaa laakiin asaga waxaad ka qaadaysaa $105 oo caadi ah yani USD dollar caadi ah ayaad ka qaadaysaa $100 baa u dirtay adiga faa'iido waxa ku saaran $5 soo halkaas ayaad lacag ka sameynaysaa sidoo kale hadii aad qofkan lacagta u soo bixinayso $100 ii soo bixiyo ku USDT ah waxaad u diri doontaa $95 adiga waxaad heli doontaa $100 faa'iido halkaas waxaad ka heli doontaa $5 oo USDT ah marka exchange-ga qaabka u shaqeeyo waa noocaas sidoo kale coinkan USDT-ga oo kale ama stable coinska waa coinan aanan dhaqaaqaynin yani isma bedelaan qiimahooda laakiin markii la joogo crypto ama Binance gudihiisa markii aad joogtid oo aad rabtid inaad coin iibsatid waxaad u baahan tahay USDT faa'iido markii aad samaysid coin aad iibsatay markaad faa'iido ka samaysid oo aad rabtid inaad kala baxdid si toos oo lama bixisid yani waxaad ka dhiganaysaa lacagti USDT ayaad soo gashanaysaa USDT markaa soo gashitid lacagti faa'iidada aheeday iyo lacagtaadii lafaha oo kugu jirtay coinkaas aad kala soo baxday USDT ayaad keensatay isma bedeli doono marka USDT ayaad ku keedsanaysaa yani USDT-ga waa kayd waaye marka stable coinska waa kayd waad ku keedsanaysaa waa halkii aad ku keedsan lahayd lacagtaada waa center marka haddii aadan horay u ogeyn sidaas u ogow haddii aad rabtid hadeertan inaad bilowdid crypto waxaad geli kartaa maaragtay YouTube halkaas ayaad ka baran kartaa 10 maalin oo aad xoogga saartay oo kaliya ayaa kugu filan waxaan rajeynayaa in muuqaalkan wax badan ka faa'iiday iyo qaabka ay crypto u shaqeyso waxaan jeclaaday in aan intaas indala wadaago maalmihii la soo dhaafay muddo adi hadda ku dhow 1 bil ah wax muuqaal maana soo dhigin xogaa safar ayaan ku jiray mashquul ayaan ku jiray insha Allah hadda wixii ka dambeeyay inaan dib u soo laabto ayaan rajeynayaa inkastoo laga yaabo inaan mashquuli doono waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen fadlan kanaalka ku soo biir oo subscribe noo saar ama ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada kamid ah la wadaag. Assalamu alaykum.